Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Bulshada sharafta mudan ee ku xiran Sahanka Channel waa xalqadeennii labaad ee taxanaha kun habeen iyo habeen. Boqorkii yaraa asigoo qolkiisa ku jira aadna u murugaysan yahay ayuu daaqadiisa qolkiisa oo xigta dhinaca beerta qasriga ka maqlay shanqar. Markaas ayuu dhinaca shanqarta ka baxaysay ayuu eegay. Wuxuu arkay arrin ka yaabisay tii haysatana ilowsiisay. Waxaa beerta qasriga soo gashay dumaashidiis oo ahayd xaaska walaalkiisa ka weyn oo addoon madow gacanta haysato, iyada iyo 20 jaaridood mid kastaba addoon madow gacanta haysta. Halkaas ayaa tumasho lagu galay. Markaasuu boqorkii yaraa ee Shaahzamaan is yiri, walee dhibka ku haysta waxaa ka daran kan maanta haysta walaalka. Aansaday inuu iska iloobo murugadii haysatay. Markuu soo laabtay boqor Shahriyaad wuxuu dareemay isbeddelka ka muuqda walaalkiisa boqor Shaahzamaan. Boqor Shahriyaad wuxuu go'aansaday inuu weydiiyo. Markii dambe ayuu weydiiyey, wuxuuna ku yidhi, walaalow, halkan markaa imaanaysay waxaa kaa muuqatay murugo iyo tiiraanyo badan, laakiin hadda caadi ayaa tahay. Ma ii sheegi kartaa waxa markii hore murugada kuu keenay iyo waxa kaa qaaday? Wuxuuna ugu jawaabay, waa kuu sheegayaa waxa murugada ii keenay, laakiin kuuma sheegayo waxa murugada iga qaaday. Markaasuu boqorkii weynaa yidhi, waayihii ii sheeg waxa murugada kuu keenay. Markaasuu ugu sheekeeyey arrintii uu kala kulmay xaaskiisa iyo addoonkii madoobaa sariirta la saarneedba. Boqor Shahriyaad ayaa yidhi, ilow waa inaa ii sheegtaa waxa kurbadan saan u weyn kaa qaaday. Markuu ku adkeeyey oo ku celceliyey ayuu u sheegay waxa beerta qasriga ka dhacay. Boqorkii weynaa arrinkaa wuu rumaysan waayey. Markaasuu boqor Shahriyaad ku yidhi, haddaad beenteeda u malaynayso, dadka iskugu yeer ee ku dheh dalxiis iyo ugaarsi ayaan aadaynaa. Markii la baxana inaad soo dhuumato qolkayga soo gal, adigaa indhahaaga ku arkayee. Boqor Shahriyaad sidii ayuu yeelay. Kadibna waxaa dhacday inuu arkay xaaskiisa iyo addoon madow iyo waxaa horay walaalkii ugu sheekeeyey. Boqor Shahriyaad markuu arkay waxa xaaskiisa ay samaynayso ayuu caqligiisa duulay. Wuxuu walaalkiisii yaraa ku yidhi, nabad walaalow, meeshaan aan iskaga tagnay, waxba uguma baahnin boqortooyadan ilaa aan ka soo arkayno in adduunkan ku nool yihiin dad ina la mid. Wuu ka oggolaaday. Kadibna labadoodii si wada jira ayay u baxeen, iyadoo qasriga qaab qarsoodi ugu baxay. Waxay safar ku jireenba markii ay daaleen waxay hoos fadhiisteen geed hoostiisa. Geedka waxaa u dhowaa bad meesha ku taalay. Ayagoo bartii ku nasanaya ayaa baddii hal mar kacday. Waxaa ka soo baxay wax aan moodo tiir weyn kaasoo cirka isku shareeray. Markay arkeen ayay cabsi dareemeen. Markaasii geedkii orod ku fuuleen, waxayna sii fiirinayeen waxa badda ka soo baxay wuxuu uu yahay. Waxa ay arkeen waxa badda ka soo baxay inuu ahaa jin aad u weyn oo aad u dheer. Wuxuu madaxa ku xambaarsanaa sanduuq weyn. Jinnigii sidii uu u soo socday wuxuu yimid geedkii ay saarnaayeen labadii boqor hoostiisa. Markaasuu fadhiistay geedkii hoostiisa oo intuu furay sanduuqii weynaa ka soo saaray sanduuq kale. Sanduuqii kale ayuu furay. Wuxuu ka soo saaray gabar aad moodo xuuracayntii jannada, quruxdeedii oo aad la yaabayso, sidii dayaxiina u ifaysa. Markaas ayuu jinnigii yidhi, boqoraddii xorta ahayday, waxaa kaa soo afduubtay habeenkii aqalgalkaadii. waxaa rabaa inaa hadda xoogaa seexdo. Markaas ayuu dhabteedii madaxa saartay kuna seexday. Gabadhii ayadoo meelaha fiirfiirinaysa ayay ishaydii ku dhacday labadii boqor ee geedka saarnaayeen. Markaas ayay madaxii jinniga dhabtii ka qaaday oo dhulka dhigtay. Kadibna intii ay u soo jeesatay labadii boqor ayay u ishaartay inay soo degaan.
waxa ay yidhaahdeen, jinka cirfiidka ayaan ka baqaynaa oo ma soo degayno. Waxay ku tidhi, soo dega, haddii kale oo aad diiddaan, cirfiidka ayaan kicinayaa. Markii lafahoodii la baqeen ayay soo degeen. Markii ay soo degeen ayay waxay ku tidhi, labadiina waa inaa ila tumataan oo ila raaxaysataan. Way ka diideen, hase yeeshee inay jinniga soo kicin doonta oo si xunna u dili doona ayay ugu hanjabtay. Markaas ayay sameeyeen waxa ayay rabtay. Markii hawsha ay dhammeeyeen ayay ka soo saartay jeebkeedii kolay yar oo ku jireen in ka badan 570 faraanti ama fargal. Kadibna labadii nin ayay weydiisay, waxayna ku tidhi, ma garanaysaan faraantiyaashan? Waxa ay ku dhaheen, maya ma garanayno. Waxa ay ku tidhi, jinnigan u jeedaan waxa i soo afduubtay habeenkii aqalgalkayga. Wuxuu igu soo xiray sanduuq, asigoo ku sii xiray 7 quful, wuxuuna igu riday badda gunteeda soo iga ilaaliyo wax nin ah. Sidaas tahayna waxaa la tuntay dhammaan nimankii faraantiyadan lahaayeen ee idinku isiga faraantiyaashiina. Labadii boqor markii hadalkaas ay maqleen aad ayay u yaabeen. Waxayna isku yiraahdeen, haddii cirfiidkan weyn gabadhan sidaan u ilaalinayay arrinkan ku dhacday, waxa inagu nagu dhacay waa saleeli.